su-aasha labaad oo Ibrahim su-aalihiisa waa run caafimaadka iyo waxbarashadu waa laba shay oo aasaasi ah waana adeegyada ugu muhiimsan ay tahay inay dowladii ay bixiso ay abuurto system waxbarasho oo wanaagsan iyo system caafimaad oo wanaagsan maanta ayaan darada jirta isbitaalka Hargeysa waxa weeyaan madaxtooyadeena 200 oo talaabo ayuu jiraa haddana baahida maanta taala iyo dhibta ka jirta haddii aad booqato adigoo aad iyo aad u murugaysan ayaad ka soo noqonaysaa wadankeenu wuxuu u baahan yahay in la dhiso isbitaallo dadku ay kaga maarmi karaan inay dhakhtar caafimaad tagaan madaxdeena qaranka oo madaxweynuhu ka yahay markay arrimaha caafimaadka ay ka hadlayaan mararka qaar waxaan isiraahdaa malaha mushkiladda meeshu inta ay leegtahay ma fahamsanaba hooyo duruufaysan oo xanuunsan oo maxaan ku dhahdaa dhakhtaradii halkan joogay ay waxba ka qaban kari waayeen marka uu qofkaas oo kala arko uu la sheekaysto ayuu dareemi karaa duruufta caafimaad ee wadankeena maxaan ku dhahdaa ka jirta annagu xisbi ahaan waxa naga go'an inaan xooga saaro oo ardayda kow ka noqoto waxyaabaha adeegyada bulshada iyo nolosha dadka saameynta ku leh oo ay waxbarashaduna ay kow ka tahay qorshe ballaaran oo waxbarasho oo xisbigu leeyahay ayaanu hadda dhamaystirkeedu ku jirnaa dhawaanna haddii ilaahay raahdo in aan soo bandhigi doonaa waxaan aaminsanahay in nolosheena oo aqoonta lagu dhisaa oo waxbarasho tayo leh lagu dhisaa inay tahay waxa kaliya taa amaba salaanka koowaad ee aynu u kori karno inaynu horumar hiigsano haddii aanay dadkeenu waxba baranin oo waxbarasho tayo leh oo sare oo aan laga abuurin waa run maanta wadankeena jaamacado badan baa ka jira laakiin jaamacadaha ka jira ma jira systemkii control lahaa ee tayadooda eegi lahaa ay ka soo bixi lahaayeen dad critical thinking leh oo aqoontooduna ay aad iyo aad u sareyso marka runtii taa dhawaan baaba waa naga gabagabo aan insha Allah haddii la yiraahdo soo bandhigi doonaan dadka reer Somaliland la wadaagi doonaan arrinta in hanti dhawrka qaranka xiriir ma leedihiin hanti dhawrka qaranku waa hay'ad dawladeed oo dawli oo hay'adaha dawliga ka mid ah wuxuu baana naga dhaxeeyay xiriirka hay'adaha kale ee dawliga naga dhaxeeyay aad iyo aad baad u mahadsantahay xog haye wala waynu gabagabadiina ku sii siqayno haddana barnaamijka oo muhiimad dartii waxaad moodaa inuu inala dheeraaday cabdifataax ayaan soo dhaweynaya cabdifataax ismaaciil soo dhow cabdifataax may maqlaysaa haa waan ku maqlayaa ma ila maqlayaa si wanaagsan baa lagu maqlayaa soo dhow aad baad mahadsantahay cabdilqaadir oo daadihinaya barnaamijka waxaan salaamayaa xoghaye khadar xuseen baad mahadsantihiin waan kaaga mahad celinayaa xoghaye waqtiga aadna siisay xoghaye su-aasha anigu aan qabo waxa weeyaan kaalintii mucaaridada iyo sixidda ee aad saxayseen dowladda laga bilaabo 2019 hoos ayay u dhacday oo awooddii faraha badnayd iyo waqtigii faraha badnayd ee aad gelin jirteen inaad dowladda saxdaan maadaama aanay jirin hay-adihii ismiisaamayey oo dowladda markay hay-adii ay awooddeeda ku tagrifasho hay-addii kale ee awooddaa miisaami lahayd 15 sannadood ay fadhi tahay hay-adihii kalena aanay madax bannaanayn keliyata xisbiyada mucaaridku ay ahaayeen meesha keliyata ee accountable u noqon karaya dowladda waxa aanu tabaynaa kaalintii mucaaridada ee 2019 ka hor intaad saad uga muuqatay saaxadda siyaasadda ayaanu tabaynaa oo hoos u dhacday waayo dowladda hadda joogta xadhkahay goosatay lagama hadlo xadhigga faraha badan ay samayso waxay u dhaqantaa sidii dowladihii kelitaliska ahaa waxay u dhaqantaa dowlad hogaamiye madaxweyne inankiisu uu ku yeesho siyaasadda iyo sharci dejin arrimaha law enforcementka hay-adaha law enforcementka oo dhan uu gacanta ku hayo oo uu maamulayo kaalin uu ka soo galay aan la garanayn waxaa ugu dambeysay xadhigga wiil
somalilan oo shaqaysanayay oo xoogsada ahaa oo la dhahdo guuleed xuseen xaashi askar oo la soo sheegay in uu u xidhan yahay wiilka uu madaxweynuhu dhalay somalilan la iskuma xidho qofkani sharcigan uu jebiyey chargeskana ayaa haysta laakiinse waxaa la isku xidhaya hebel buu u xidhan yahay markaa mudane xog haye kaalmahaasaanu tabaynaa mucaaradad ee aad dawladdan aad accountable ka dhigi jirteen dadka facebooka wax ku soo qorqoraya waxba ma taraya hadalkoodu qofkii 2 goor facebook wax ku soo qorana wuu eedayaa waa la xidhayaa mudane xog haye khudbadaha madaxweynuhu uu la wadaago shacabka iyo golayaasha waxaad ku samayn jirteen filtering iyo fact checking baad ku samayn jirteen waxaanu dadka u sheegayo kalam garanayo maxaa ka sax maxaa khalada dhaqaalaha waddanka uu sheegay maxaa khalada maxaa saxa ku soo dhawow intaasaan su-aashada kaga baxayaa mudane asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdifataax aad baad u mahadsan tahay waqtigu waa gabaabsi saki xogayaa waxaan ka codsan lahaa inaan ugu yaraan 3 su-aalood markan isugu xejinno oo uu isaguna nood garaysto saki baan soo dhaweynayaa saki siciid aad baad mahadsan tahay walaalkay Bakayle Cabdiqaadir iyo Khadar xogaya Qadar aad baan idin salaamayaa waliba aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa Maxamed Bakayle barnaamijka isku soo dabariday waxaanan jeclaan lahaa inaad halka ka sii wato inkastoo aanan halkan su'aal badan soo karin waxaan xogaya ku weydiin lahaa fikir ahaan maxaad ka aaminsan tahay dhalinyarada reer Somaliland ee aaminsan mabda'yada kala duwan ama Soomaali weyn ahaato maxaad qorshihiina haddii aad ifan xilka qabataan uu yahay dhalinyarada ka tagtay wadankii ee wadan kale aaday ama Soomaaliya ahaada ama wadamada jaarka ahaada ee dhaliila ama xorriyadooda ka hadla qorshihiinu muxuu yahay ma sameynaysan sida dawladda hadda jirta ee qofkii dawladda dhaliila aad xidhaysaan aad mahadsan tahay dhammaan waan ka mahad celinayaa barnaamijka aad baad saki u mahadsan tahay xogaya waxaan kaa codsan lahaa miyaan su-aashii saddexaad ku raacin karaa ha waad raacin kartaa waan qoranaya walaal wahagaag soo dhawow Fatuush Taahir may maqlaysaa ها ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هري محمد يوسف بكيلة آد بان كاغا مهد علينا عاو برنامج كان قروح بدن لأد نوسو أباب الشي وحن سلامة يا حقايا قار عيد لي سيدو كالي حقايا قدنا وان سلامة يا ونغا مهد علينا يا وقتي سقالي قو عاو نسيي سؤال شان قوم موضوع عين كستي كبح سنتاي بل سوا أرين آدو مهمة إسلامر كانت تاغن وحن ربي حقايا هنا ويديو سومال لاني حسبي قوداني مكسو هرتي دا إن بدا سوماليد كينيا نقود دماعيدو آد بدنو ماسا Fatuush aad bay u mahadsan tahay xogay soo dhawow aad iyo aad baa dhammaantiin mar kale u mahadsan tihiin Cabdifataax run ahaantii haddaan ka horeeyo oo runtii su-aalo muhiima iyo su-aal muhiimayna weydiiyey xaqiiqada jirtaa waxa weeye intaa uu Cabdifataax ka hadlayaaba run ahaantii inay jirto inay dowladnimadeenu maanta ay leexatay in hogaamintii madaxweynaha hadda talada haya aan la mahadinin in dariiqa uu haystaa uu yahay dariiq aan ahayn run ahaantii kii saxda ahaa inuu yahay dariiq hore loogu soo jabay dariiq hore loo soo tijaabiyey in dadka la caburiyo in dadka cadaalad darro lagu dhaqo in dadka maxaan ku dhahdaa loo cagajugleeyo in dadka aragtidooda lagu qabsado waa dhaqano aynu hore usoo aragnay oo taariikhdeena beejaj ka mida soo maray aynu ognahayna halka ay ku dambeeyaan iyo halka ay maraan waxa kale inuu ognahay qofka isku daya qof fikradiisa cabiray maxaan ku dhahdaa ama Facebook ha ka cabiro ama meel kale ha ka cabiro qofka isku daya inuu fikradiisa cabiro cidda maxaan ku dhahdaa xidhaa halka ay ku dambayso iyo maxaan ku dhahdaa dhaqankaasi halka uu tagana aad iyo aad ayaynu u naqaanaa waxa kale oo hubaantiya oo aan qiraynaa in maanta madaxweynaha Somaliland 4 sano ku dhawaad kadib wax uu ku faano oo buuran oo maanta intuu dadka isla soo hortaago uu yiraahdo waxaan sameeyay lagama hadlo maxaan ku dhahdaa waxyaabihii socday subax walba xafiisya la tagaa waa la shaqeeyaa wuxuun baa la qabtaa laakiin wax bool ah oo maxaan ku dhahdaa in hal projectna ha ahaatee oo mujtamaca Somaliland ay u riyaaqaan oo ay yiraahdaan kaasaan sameeyna markasta warbixinaha haddaad eegto oo warbixino soo noqnoqday
saddex khudbadood buu madaxweynuhu jeediyey saddexdaba waxa ku jirtay berbera corridor anigu waxaan isweydiiyay intee leeg buu madaxweynuhu ku faani doonaa weliba waa mashruuc isaga kasii horeeyey oo madaxweynihii hore axmed maxamed maxamed siilaanyo shaqadiisa uu lahaa ilaa haddana aan maxaan ku dhahdaa dhammaanin marka mashaariicdii ahayd inaanu sooba hadal qaadin waayo delay aad iyo aad u badan baa ku jira oo tamar darro badan baa muuqata in haddana sanad walba lagu faano run ahaantii macno weyn oo ay maxaan ku dhahdaa samaynaysaa ma jirto in siyaasadda iyo qoyska la kala saari waayaa iyaduna run ahaantii mushkiladeeday leedahay halka ay tagtana iyadana weyn naqaana anigu waxaan is leeyahay xisbi ahaan laba arrimood baa aad iyo aad u daruuriya in badan dee mas-uuliyiinta xisbiga ee kala duduwani way ka hadashaa mashaakilaadka kala duwan ee waddanka ka dhaca xaqiiqatan waan document garaynaa marka mushkilad waddanka ka dhacday ama qalad waddanka ka dhacay oo aanan ka hadlini inta badan maxaan ku dhahdaa ma jirto waa laga yaabaa cidda ka hadasha inay dadku eegaan oo yidhahdaan ciddaasi kamay hadal ama ciddaasi ahayd inay ka hadasho laakiin mar walba mas-uuliyiin xisbiga ka mid a oo xisbiga ku matalaya ayuunbaa ka hadla laakiin ta kale aad iyo aadka muhiimka ah waxa weeye hadalka dabadda laga yidhaahdaa waxaa laga yaabaa inaanu saameyn weyn maxaan ku dhahdaa yeelanin hadalka wanaagsan iyo toosinta iyo mucaaradnimada waxa ay macno weyn samaysaa marka ay dadka oo maxaan ku dhahdaa damiirkooda iyo dadnimadoodu ay maxaan ku dhahdaa xoogan tahay qofku credibilitygiisa iyo sumcadiisa uu ilaalinayo laakiin halka sida rasmiga ah isla xisaabtanka dowladnimo aynu uga abuuri karnaa waa baarlamaanka weeye marka runtii muddooyinkii ugu dambeeyey waqti badan iyo juhdi badan waxaanu gelinay sidii ay u dhici lahayd doorasho baarlamaan maxaan ku dhahdaa u iman lahaa baarlamaan leh tamar uu kula xisaabtami karo xukuumadda waayo baarlamaanka ayaa ah halka ay maraan maxaan ku dhahdaa shuruucda dowladda budgetka halka lagu eegi kara ah halka wasiirada loogu yeeri kara ee su'aalo lagu weydiin kara ah halka isla xisaabtanka rasmiga ahi ee dowladnimadu ka samaysmaya waa baarlamaanka marka inuu xisbigu halkaasi siitad macnala ku yeesho uu tago waqti badan ayaan runtii gelinay waxaan rajaynaynaa dhowaan insha allah haddii la idhaahdo inaan taa ku guuleysan doono ta labaad seki run ahaantii dadka dhalinyarada reer somaliland waxa aanu qabnaa in fursad loo abuuro fursad ay noloshooda ku dabaraan loo abuuro fursad ay shaqo maxaan ku dhahdaa iyagu ku abuuri karaan loo abuuro nolosha dalka iyo dadka inay qayb ka noqdaan loo abuuro siyaasadda inay qayb ka noqdaan loo abuuro fikirkooda inay cabiraan oo ay hadli karaan oo ay doodi karaan loo ogolaado haddii ay taasi timaado waxaan qabaa dhalinyarada reer somaliland inaanay waxay somaliland ku doorsadaan iyo meel ay tegayaan toona aanay jirin sidan horebana uu yidhi anagu qofna dhaliilay iyo qof naga fikra duwan midnaba uma aragno in la xidho su-aasha ugu dambeysa fatuush run ahaantii anagu ma aaminsanin in qof soomaaliya oo maxaan ku dhahdaa isirka soomaaliga ku hadlaya ah ama jabuuti ha joogo ama maxaan ku dhahdaa soomaali galbeed ha noqdo ama soomaalida kenya ha noqdo ama soomaalida soomaaliya ha noqdo in cid ka baxsan soomaalidu ay dulmido waananu kasoo horjeednaa in badda soomaalida maxaan ku dhahdaa la hungureeyo oo cid maxaan ku dhahdaa ka baxsan soomaaliya ay hungureyso sida taa lagaga bixi karaana waxa weeye in dadka soomaalida ahi ay isku tashtaan maxaan ku dhahdaa walaalnimadooda ay soo celiyaan iyagoo dowlado kala duwana ay iskaashadaan dad walaalaa oo wax wadaago oo iskaashada maxaan ku dhahdaa ay noqdaan si aan dadka dibadda uga faa'iidaysanin waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay xogaye waxaan ka cudur daaranaynaa qadar daqiiqadaah oo kooban inay dhaafi doonto waqtigii ballanta ahaa waxaana rajaynayaa inaad naga aqbali doonto xamda iyo khalid iyo intan hadda halka saaran baan israacin doonaa xamda soo dhow haddaad imaqlayso soona koob weydiintaada xamda may maqlaysaa xamda ayaan waaya khalid boordle ayaan u gudbayaa khalid soo dhow khalid may maqlaysaa soo dhow si wanaagsan baan kuu maqlaynaa adoo waqtiga soo koobaya hal iyo laba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سير خضر آد باكو سلامي
كل اللي بس أنا بدو كويدينيا أنا كذا قادنا يوم حالة هذا حقيقة حسبي جودة ودني تكواد وحوي باهوين أي لقبة إلا فرض ديارها فلاي دبي إيه العربية مكانات الشتين دولة وددال دير موجشين سؤال شلبات وحوي يدنا كلها ده حسبي ودني حلما أي لقبنا أما لوجو ترتمية سدحة أو عدالة إلا كراست حاجة وسرس هذه هذه المقصود waa tahay siman waa maqli waayey waxaad moodaa adeega internetka oo dhankayga daciif ka noqday qudhiisa su-aashaas waxaan ku xejinayaa amiin nuur oo fariin dhanka internetka inoogu soo diray wuxuu yidhi xogayaha xisbiga wadani waxaan weydiinayaa xisbigu keliya waxa uu dhalilaa waxyaabaha ay xukuumaddu ka gaabiso welina guulaha ay gaadho isagoo boogaadinaya qaran ahaan maanan arag arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa labadaas su-aalood israacii su-aashii ugu dambeysay ayaan markaa ku siin doonaa aad baad umahadsan tahay xogaya soo dhowo aad iyo aad ba u mahadsan tihiin Khalid walaal run ahaantii waa nasiib darro in maanta waddankeenu tiyo duruuf inagu kalifaysa aanay jirin ay hal diyaaradi ka shaqayso oo maxaan ku dhahday monopoly suuqa ay ka abuuranto waana waxyaabaha ugu waaweyn dhaqaalaha ummadaha burburiya in monopoly la abuuro labada diyaaradood Fly Dubai iyo Air Arabia waxay inoo ahayn gateway aynu dunida runtii aynu usii marno waxa ay qiimo dhimis weyn u sameeyeen markii tartanku uu yimi diyaaradaha international flights ka sameeya uu yimi faa'iido weyn waxay u noqotay dadka reer Somaliland ee qurbaha joogay waddanka imanaya dadka ganacsatada baahiyaha kala duwan ee dunida sidii ay u tegi lahaayeen leh run ahaantii qiimaha oo flightku meelaha qaar 40% ayuu kor u kacay meelaha qaar 30% ayuu kor u kacay sababtuna waxa weeyaan maanta nasiib darradu waxa weeye in hal diyaarado kaliya aanad options haysanin marka aad doonayso inaad meel waddanka dabadiisa u baxdo ama aad meel dabada ka timaado aad waddanka timaado waxaanay astaan cad u tahay siyaasad xumada iyo guracnaanta maamulka maanta talada haya xisbiga maxaan ku raacdaa kulmiye iyo madaxweynaha su-aasha labaad anagu taa waananu isku daynay oo waan run ahaantii ka hadalay sidii labada diyaaradood loogu furi lahaa inay dadka maxaan ku raacdaa flightskoodii ay sameeyaan laakiin ilaa hadda wax hortaagan oo rasmiyana ma garanayno laakiin haddana xukuumaddu ma fasixin arrinta golaha dhexe shirkii golaha dhexe insha Allah haddii la yiraahdo wuxuu dhacayaa in 30ka in March businesska lagu qaban doono ajandihiisa weli lama dejinin laakiintiise de mar kasta oo shirarka xisbigu ay jiraan maxaan ku rahdaa waxa ka dhaca waa wax maxaan ku rahdaa nidaam dimuqraadi u dhaca oo leh korjoogteyntii in hay'ado ka madax bannaan xisbiguna ay korjoogteeyaan marka insha Allah sidaas oo kale ayaan rajaynaynaa inuu u dhaco haddii la yiraahdo su-aasha amiin nuur annaga shaqadeedu waxa weeye inaanu dadka sidii maxaan ku rahdaay waxyaabaha inaga qaldan aan u sheegi lahayn inaan xukuumadda anagu PR u samayno oo waxa ay qabato because xukuumaddu waa inaan hartumid ogaanaa inaga inoo shaqeeyaan cashuurteennii bay ku shaqeeyaan maxaan ku rahdaay adeegayaal ayay inaga inoo yihiin marka haddii waajibka saaran ay kasoo baxaan well and good haddii aanay kasoo bixinna shaqadeedu waa inaan toosino u sheegno halka ka qaloocan yihiinna aan tusno aad iyo aad baad u mahadsan tahay xog haye siman nuur waa soo laabatay siman baan siinayaa kadib maxamed saalax baan ku saafmeeraya soo dhow siman may maqlaysaa waan dhowahay maxamed baykayla walaal aad baan kuu salaamaya wariye waxaan doonayaa inaan xoghayaha weydiiyo anigoo ka faa'iidaysanaya fursadani lixda gobol ee Somaliland marka cashuur ahaan laga hadlayo
gobolka awdal waa gobolka labaad ee cashuurta waa gobolka labaad maroodijeex marka laga reebo marka waxaan weydiinayaa xogayaha gobolka awdal waa gobol khayraad leh sida la og yahay laba dekedood buu leeyahay hadday tahay lughaya iyo hadday tahay sayla sidoo kale airport bay lahaa gobolka awdal ilaa hadda wuu xidhan yahay cashuurta gobolka awdal laga qaado sidaan hore usoo sheegay lixda gobol ee somaliland waxa ka horeeya oo keliya maroodijeex haddiiba uu xisbiga wadani ku guuleysto siyaasad ahaan maxaa idiga qorshaysan ma ku soo noqon doontaa cashuurta intaa leeg ee gobolka awdal bixiyo gobolka 10% xataa aanu dib ugu noqon inay ku noqoto oo sidoo kale looga faa'iideeyo arrimaha bulshada oo ay tahay maxaa la yiraahdaa dekedahoo la furo airportkoo la furo waayo saamiga laga hadlaya dadku waxay moodaan kuraas laakiin anu kuraas uma haysto waxaan u haystaa in dowladnimada la iska wada dhex arko oo khayraadka dalka laga faa'iideysto marka intaasaan kaga baxaya aad baan idin salaamaya waa tahay maxamed saalax soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا حقي خضر عبد القادر إيد محمد سيدا وناكسن كنت عاودة أنا برامج كوادي سنة سؤال وناكسن بالسعودي برامجي هرو أنك قيب قلي أو سياسيين بدنا صومالي ذي تشيرنا كنت وحدي كرا قوة وناكسن بالغو قيمين كرا هذا عقوم هذا علينا أنا سوكو بوقتنا كفاية السنة وحتى الله هاي سؤالي هو حقا كير دوون إنا ويديو puntland dhowr jeer oo hore bay wax ku celcelisay in khilaafaadka Soomaaliland kala dhaxeeya ay in badan wada hadal iyo ay diyaar u tahay inay ku dhamayso siiba madaxweyne Deni idinka xisbigiina wadani hadii arrintaas ay u aragtaan maxaa puntland khilaafaadka Soomaaliland kala dhaxeeya si u wajahaysaan waa mahadsan tahay maxamed waa tahay xogay ku socon labadii su'aalood oo dambeeyay aad iyo aad baa u mahadsantihiin siman walaal xaqiiqatan waxa resourceska iyo waxa wadanku yahay in si cadaalad loo wadaago oo maxaan ku dhahdaa gobolada Soomaaliland si cadaalad loogu qaybiyo in badan baanu ka hadalay insha Allah hadii la yiraahdo markaan awoodda wadanka nimaadnana waan dhabayn doonaa waxaan u aragnaa in wadanka dhaqaalihiisu si uu kobco infrastructure-kiisu uu dhismo infrastructure-ka waxa ugu muhiimsan sidaas sheegtay dekedaha iyo wadooyinka tamarteena dhaqaale inagoo eegayna in meel kasta oo wadankeena kamid ah sidii horta wado uu heli lahaa insha Allah hadii la yiraahdo laga shaqeeyo hal wado hadaynu xoog saaro oo ugu weyn Soomaaliland oo dhan isku xidhaysa wax weyn bay dhaqaalaheena ku soo kordhinaysaa iyo nolosha dadkeena iyo deegaanadeedaba waa xaqiiqo in caqabado waaweyn oo dhaqaale ayaa idin hor taagan laakiin tiisi haddana waxaan aanu tabaynaa in ay daacadnimaduna yar tahay isku dayguna run ahaantii uu yar yahay wadada ceergaababa maalintii dowladii Axmed Maxamed Shiraayo ay ku dhiiradeen hogaamiye xirsi de waynu aragnaa in midhaheedii iyo waxa ay tartay marka wadooyinka kale ee wadankana saasoo kale loogu dhiirado in resourceska wadanku leeyahay ee kooban ee yarna dadku sidii ay uga wada faa'iideysan lahaayeen oo si cadaalad loogu qaymin lahaa in laga shaqeeyo waa mid aan in badan ka hadalo waxyaabaha structuralka systemka ku jira inequality iyo cadaalad darrada gobolada dhexdooda abuurayana oo run ahaantii marar badan oo horena aan ka hadalay in la daweeyo insha Allah hadii la yiraahdo horena waa u ballan qaadnay haddana diyaar baan u nahay inaan ku celino maxamed puntland waa dad Soomaaliyeed oo maxaan ku dhahdaa waliba aan wadaagno xuduud inaan dad Soomaaliyeed dhiigoodu isku daadanin oo aanu dhiigoodu dib isugu daadanin run ahaantii waa mabda aan aaminsanahay inaan iskaashano gobolkan aan ku noolahay waxay nagula nool marka qoomiyada laga hadlayo qoomiyada fara badan baa inagula nool qoomiyada inaga badan baa inagula nool qoomiyada aanina jeclayn baa inagula nool marka inagoo siyaasadaheena kale leh dawladaheena kale leh sidee baynu qoomiyad ahaan ugu tartanaa oo dhaqaalaha gobolka faa'iidada ugu weyn dadka Soomaalida ah waa dad entrepreneurs oo ganacsiga ku wanaagsan sidee baynu isdhexgalka gobolka u xoojinaa qoomiyad ahaan aan ugu fikirnaa inaan uga faa'iideysano dunidana way jirtaa in khaliijka carabtu
iyagoo dowladaha bay haddana iskaashi weyn leeyihiin oo waxyaabo badan ay isku istaan ka noqdaan marka intii dhiig uu soomaali ku kala dhex daadan lahaa intii khilaaf kaynala hadhay uu sii jiri lahaa in maxaan ku rahdaa in la isfahmo maadaama aanay maanta shantii soomaaliyeed aanay suurtagal ahayn in aynu 5 dowladood haddaynu kala noqonana aynu kala noqono laakiin tiise iskaashano qoomiyadnimada soomaalinimadana aan xoojino aan adkayno gobolka macno weyn ayaynu run ahaantii ka samaynanaa dhiiggeenuna iskuma daadan doono insha allah aad baa umahadsantihin aad iyo aad baad u mahadsan tahay xog haye inahaas ayaan doonayaa inaan kusoo koobo barnaamijka waxaan doonayaa inaan mar kale u mahad celiyo cali mahdi oo barnaamijka ila daahinayey sidoo kale cabdulqaadir iidle oo isagu doorka ugu weyn ku lahaa halabuurka in xoghayaha iyo bulshada laysku horkeeno cabdulqaadir aad baad u mahadsan tahay cabdulqaadir wuxuu naga ballan qaaday inuu madaxda iyo hoggaanka sare buu yidhi xisbiga oo ah dad u bisil hadalka dadweynaha ay idin hor iman doonaan mar kale iidle waad mahadsan tahay dadweynaha waxaan rabaa inaan xusuusiyo barnaamijyo kan lamid ah oo madaxdu hortiina ku iman doonto ayaa soo socda halaysa soo raaco hana la wada socdo sidoo kale waa ibafur iyo bilow cusub wala waan bulshada Somaliland si togan ugu baraarugsanayn abkan haddana waxay doodan iyo barnaamijkan caaw door muhiim ah ka qaadanaya in bulshada dhinacan loo jirayo xoogay mar kale waad mahadsan tahay cali mahdi adiguna waad mahadsan tahay idle iyo guud ahaan ka qayb galayaasha aad baa u mahadsantihiin nabadgelyo aad baa umahadsantihiin dhammaan